مسؤوليinta dawladda hoose degmada Burco iyo saraakiisha jaamacadda Burco ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay maxad cusub oo lagu baran doono shariicada islaamka oo la mataanoobi doona jaamacadda isla markaana qoodin doona qaybta culuumta shariicada islaamka waxaana maxadkani ku midoobay ardaydii ka aflaxday culuumta shariicada islaamka ee jaamacadda Burco maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad ayaa soo dhaweeyay maxadkani culuumta shariicada islaamka bulshada Burcana ugu baaqay inay soo dhaweeyaan yani waxaan ku ilqabowsanaabay noqonaysa in ardayda kulliyada jaamacadda in kulliyada shariicada yani isxil qaatay oo karatay yani waajibaad ka saaran oo shariicada ka saaran oo gobolka ka saaran oo degmada ka saaran jaamacadda ka saaran inay garteen la shukr ala alwaajib gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco Ali Haydar Sheekh Ali Warsame dhinka kulliyada shariicada islaamka Sheekh Faisal iyo maamulaha maxadkan ayaa dhamaantood tilmaamay ahmiyadda uu leeyahay in la dhiirigeliyo maxadada caynkan oo kala isla markaana kor loogu qaado diinta islaamka iyo shariicadeeda maxadkan Al Furqaan ee magaalada Burco ayaa isagu noqon doona mid qayb ka qaata ku barbaarinta iyo ku tarbiyadeynta bulshada ee shariicada islaamka dhinaca kalena majaajilayaasha Sooraan iyo Jawaan oo dalka ka waday barnaamij la magac baxay muwaadin ka qayb qaado horumarka dalka ayaa habeenkii xalay ku soo bandhigay barnaamijkan afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka waxaana daawashadeeda ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan jilayaasha Sooraan iyo Jawaan oo la hadlayay dadweynahani ka soo qayb galay daawashada filinkani ayaa ku booriyay isla markaana ku dhiirigeliyay bulshadu inay si weyn uga qayb qaataan horumarka dalka gaar ahaan wadooyinka xilligan ee ka socda gobolada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kusoo talagalay inay wada daawado dhamaanteen ee ku saabsan ka qayb qaadashada dhinaca wadooyinka sidii qof kasta oo muwaadin reer Soomaaliland uu uga qayb qaadan lahaa dhismaha dalkiisa adoo ka qayb qaado dibudhiska wadada Oodweyne iyo Ceerigaabo وعبد الساق فار عبد الله TV qaranka Soomaaliland Burco